nin taajira ayaa masjidka soo galo ducaysanayay nin ay qaraabo yihiin oo baahnaa ayaa markaa aqalkiisii buu ku waayay xafiiskiisina markuu tagan waa laga celiyaa wuxuu yidhi masjidkee buu ku tukadaayo masjidka halkaa ku yaalo ku tukadaa baa la yidhi masaajidkii buu u dhex fadhiistay markaa dee ninkii taajirkii dad muxsiniin iska jiro ilaahay ku xidhan moogtahay oo ilaahay cilaaqa la leh iska alla barya markaas kiina albaabka intuu ka baxay buu dibaddu ku sugayaa ilaa dhanacu ka soo galay buu arkayay markaasuu wareegaayo markaasuu arka ninkoo ducaysanaya haddana uu yar wareegaayo ninkoo weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukada iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adig ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi annaka yahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataa ee maxaad gacmaha la taagtaagi manakaadna kaga dhumanaysaa meesha soo bax buu ya allah ya muslim taajirku ilaahay buu u baahan yahay miskiinkuna ilaahay buu u baahan yahay madaxdu ilaahay bay u baahan yihiin dhallinyaradu ilaahay bay u baahan yihiin shucuubtu ilaahay bay u baahan tahay ilaahay bini aadamku lamxata cayn kama marmi karaan ilaahay waan u baahannahay lidaalika masaajidka diinta aad ku dhaxaysatid ayaa la doonaya inaad dibadda ula baxdo ood garataa sidaad masaajidkan aad ugaga cabsanaysa ilaahay aad ugu dhex baryaysay eed bini aadamka xaqiisana aad iskaga ilaalinaysay ee sheekada adduunyada aad iskaga ilaalinaysay ee haddaad aragtay mid telefoonkii masaajidka dhexdeeda ku hadlaya aad u leedahay war meeshu waa miskiida dibadda ula bax aad u leedahay ayaa la doonayaa bannaanka markaad u baxdana inaad naftaada sidaa u muraaqabayso oo tidhaadid ilaahay bay arkaayo ilaahay bay maqlaaya يا أركايا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير خلقه سميل كستيجوغان كأوجد أركايا وإلهي هذا إله كما قد صد يعلم سر وأخفى وحلابتهذا كجرة وأبيها walaalkay adiga sirtayna dhaxmartay ilaahay waa og yahay Safwan bin Umayyah ayaa Umar bin Wahab ninka la oran jiray ayagoo markaa labadoodu waa mushrikiina oo Makka ay joogaan waa zamankii nabigeena kaleey salaatu wassalaam waqcadii dagaalkii Badar baa laga soo noqday 7 gaaladana waa laga laayay 7 gaala ana nabigu waa qafasho uu xidho uu qaatay labadanna waa qaraabo Umar bin Wahab inankiisii wuxuu ku jiraa 7 kala xidhay Madiina loo qaatay buu ku jiraa xilli waqti dhahira ay tahay oo magaalada Makka waa magaalo kullu dadku ay kala seexdeen ayaa labadoodii baa meel wada fadhiistay dhagax agteeda wada fadhiisteen markaas ay ka soo qaateen waqcadii dagaalkii Badar dhibtii loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka Umar bin Wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta Maxamed uu noo geystay iyo guusha Maxamed maanta uu naga helay tu aan u adkeysan karna ma ahine sumcadii Quraysheed buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn la igu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada Madiina intoon tago xeelada ku tagana anu maanta waan haystaayo inankayga baa iga xidhan oo itu sabaan oran lahaaye Maxamed aniga soo khaarijin lahaa buu yiri Safwan bin Umayyah ayaa ka faa'iideysto yiri ma samayn kartaa haa waan samayn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynka lagu leeyahay aniga halay soo raacabu ka yiri waa labadoodu kaliya Makka iyo Madiina masaafada u dhaxaysana waa taqaanaan la 400 kilometer وصو سعودي آلات كان زمن كان إمك اسكو تورتور إن فيسبوك يا واتساب يا بلايا جن مجري زمن كاس وصو سعودي مدينة وصو قال عمر بن وهب سوى سيفتي سجاني قارن مر علي مركو عمر بن الخطاب بايري وعمر بن وهب باها شيطان من شياطين قريش وياني سيفتي نواكا جاني قارن يا قورتو كسيتي أردو نبيك إلى علي يقول نبيك نواك جوج نبيك كإلى علي صلى الله عليه وسلم شرق مو سعودي خير ما سعودي
markaasuu ayaa rasuulka loo sheegay oo lagu yiri nabi allah Umar bin Wahba soo galay magaalada soo saamahan Umar markaa buu nabigu yiri soo galiya loo soo galiyay maxaad u timiday buu ka yidhi waxaan u imiday inankaygii oo asiir oo gacantiina ku jiro inanka agtiina aad ku haysataan inaad ihsaanna ii sameysaan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu yiri oo ka wada hadalno markaa buu nabigu ku yiri seeftana qoorta ku sidata maxay tahay hada wuxuu yiri qabbaha allah buu ilaahay haba duleeyay seeftana ma waxbay noo tartay buu dagaalkii badan iyadoo tan wadano Saudi 7 naga laayay 7 naga soo qafashay naga soo xidhay ma markaa buu nabigu ku yiri fariisa buu yiri arrinka ma harikaadu socoto aniga kaaga warramay oo fadhiistay adiga Safwan bin Umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayad fadhiisateen Makka markaasaad soo qaadateen dagaalkii Badar dhibtii leeyni geystay markaasaad tiri hadan heli lahaa daynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aanu dhiibo iga kafiil noqoto hadan heli lahaa Madiina intuu tagaan Muhammad aan kaga soo taqallusi lahaa fursadii buu ka faa'iideysto isaguna daynkiina uu ka qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabuu haaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartid ilaahay baa ilaaliyo rasuulku ku yiri ayaa nabiga uga warramay allah baa uga warramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallahi ya Muhammad wallahi baan ku dhaartay ilaaha xaqiisa aad noogu yeedhaysid waan beeninaynay warka ilaahay uu jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sida hadda adigu hadalka aad u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warka dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warka iga ka soo horeyso ku sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto illa allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waan ku rumayn adigane ilaahayna waa rumayn tawxiidka ay qirbu ku yiri halkii buu ku qiray ilaahay marka waxa dunyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira ka warqaba waa ilaahay ishaada in wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisa u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa taala inuu adiga wax ku tuso ka indho u baahan ma gacantaas ka haysan bas ilaahay isaga ka taliya koonka tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab امرأة أبي لهب أيا نبينا أوتمد عليه الصلاة والسلام يضرب دغح سدته أبي بكر بأوتمد وهل كان فرديا رسولنا واقف فرديا صلى الله عليه وسلم أبو بكر رسولك دنا عسكو هيان مركز إلى هاي أبو بكر صاحبك ما نو إليه النار بتكون دميني دونته وقبل يجي صدري قبل بقرآن كوايس تاموت أبو بكر رسولك إيجا هذا ما أنت محمد أنا وأنرك لها بيتري بقى حيسك نستوى مدحا بشخص لها بيتري مركز كان نقطه أبو بكر نبي يا رسول الله ما ينكو أركين ما أنا أرجع يجو أركي لهيد بإلهك قاعد يقول إنه هيبل محو حكوا أركا إيش وحكوا أركا من لنا هاي ما يأمرك إلهي وحكوا أركا دكتو وحكم مغلا ما دكتو أمرك إلهي بهو بانتاين مقاشو لوكتادو إنه سعوت إلهي أمرك يسيو باهنتا خالق وإلهي marka ilaahay macrifadiisu waa waajib qof kasto muslima laga raba ilaahay inuu dhabu garto tasarrufaadka caalamka ilaahay bas kale marka shayga ugu horeeya bini aadanka lagu waajibi waa ilaahay macrifadiisa diintuna nasiixadeedu halkaas ka bilaabanta lillah kun abdan lillah ilaahay adoonkiisa oo dhaba noqo ilaahay